xaraar iyo qaabdarro ka imaanayso ama la isku dilayo 2 saacadood gudahood in maxaan ku yiraahdaa 20-30 xildhibaan la yiraahdo waa lagu doortay 2 saac bas dad aan la garanaynin cidda ay matalayaan iyo cidda yihiin inay doortaan kuwa yaa la aqoonsan lahaa wajiga soo duubta kuwa muxuu ahaay sii jeesta kaamirooyinka ka dhuunta maxaan ku yiraahdaa kuwa xildhibaanka la dooranayo iyo guddiga doorashada shuruud uga dhiga kaamira lama soo geli karo hoolka haddii kaamira la soo gelin annaga waxba ma dooranayno war waxaasoo dhammaan soo marnay meel loo xiiso lagu noqdo ma tahay waxaan rabnaa marka waa maasantiin shukran waxaan rabnaa marka meeshaas aan ka nimaado aan u nimaado dadka Soomaaliyeed fursad aan siino dadka Soomaaliyeed inay inta showraan war calina sidaanuu na leeyahay caashana sidaanayna leedahay labadan ra'yi keenna anfacayo kanaana anfacayo aan qaadano inta yiraahdaan ay u codeeyaan war deegaankeenayaan joognaa kee nabadeynteena ka shaqaynaya kee ubadkeena tacliin inay yeeshaan ka shaqaynaya kee maxaan ku yiraahdaa mujtamac community-geena oo deegaanka dawladaha hoose councilska deegaanka yaa nooga shaqaynaya inay doortaan ay ogolaadaan magaalo Jalalaqsi la yiraahdo oo gobolka Hiiraan ka tirsan ayaan ku dhashay aan ku soo koray magaaladaasi kacaanka ka hor tuulay ahayd magaalo weyn ahayd laakiin tuulay ahayd sharciga dabray nidaamka jiray sharci oo degmooyinka inta isku jiraan labada degmo iyo xadidaya maadaama buulo burta ay aad ugu dhaweeday degmo way noqon weyday waxay ahaaday tuulo laakiin waxaan u soo qaatay tuuladaasi anoo yaro xusuustaydu wali ay taagan tahay 3 jeer ayaa la isdoortay oo maayarka magaalada la doortay sanduuq cod lagu doortay 3 jeer 3 maayar oo kala duwan ayaa magaalada soo bartay maayar la dhihi jiray muxuu ahaa Sheekh Bariise maayar la dhihi jiray muxuu ahaa Sheekh Cabdirashiid maayar la dhihi jiray muxuu ahaa Maxamed Daayo intaba maayaray ahaayeen dadka doortay tuulay ahayd hadda waxaan joognaa war degmo aan gaarno kor inta ka nimaado dawlad goboleed iyo degmo dadka jooga inay doortaan aan gaarno berri tuulooyinka iyo meeshiiba qoys shuruuc la sameeyo intaasoo qoys meeshay ku nooshaa in la doortaa la dhaw waa la gaarayaa laakiin aan bilow war aan ka gudubno yaanan ku nagaanin reer hebel oo